Hello, assalamu alaikum guys. Soo dhawaada mar kale video cusub waa King Maro leh. Videogan horta video aan wada naqaano sida caadiga normalka aan u isticmaali jirna ma ahan. Waa video aan ku sameeyo doono director ahaan in aan u isticmaalo sidoo kalena player aan ka dhigo one of the most best coaches aan ka dhigo. Playerkaas wuxuu noqon doonaa Lionel Messi. Waana kan hadda saa u jeedid wuxuu maxaa lahaa uu kulankiisa yani bandhigiisa ugu horeeyay lagu soo bandhigi doona kooxdan loo yaqaan New Old Boys. kooxdan saaro ku maqlay Messi waxaa la yidhahay wuxuu ka ahay junior toodamiya kuwa yarkuu ka soo baxay intuusan imaanin kooxda Barcelona intuusan imaanin ka hor marka tiimkaas hadda geliyay tiimka waxaa waaye yani kooxdooda saan oo kale waayo waxyaabo badan aan rabnaa marka inaan ka celino waxyaabo badan oo baahanna oo sababto koos waxaa rabnaa in aan u sameyno playerada in Messi hadda uu joogo in maxaa la Messi magaciisa isticmaalno oo yani player fiican oo kala ah keeno oo kala 3 milyan bis haystaan 3 milyan ciyaaryahan xitaa mushaarkiisa ma goynayso ma fahan waxaa ka faa'iideysan doonaa marka playerada free-ga ah maadaama kuwaas mushaaraadkooda bixin karo midooda kalena waxay playerada hadda inta naga soo dalbado 99% ina maxaa la lahaa iska iibina qosbanaan horta playerka ugu horeeyo aan free ku raadiyo wuxuu ahaa ninkan loo yaqaan Memphis Depay maadaama Memphis Depay iyo sidoo kalena Messi oo maxaa la lahaa xoogaa isku fiicnaayeen oo ninkan Barcelona hore u soo maray waxa ay fududaatay marka Memphis Depay inaa kooxda ku qalqaaliyo oo aan dhaho maadaama hadda heshiiskiisii oo maxaa la uu kula joogay kooxda reer Brazil Palmeiras inuu yani ka soo burburay heshiiskii aan isla fadhiisanay meelaha wada fadhiisanay waxa waaye si Messi way wada fadhiisteen heshiiskii uu ku qanacay sidoo kalena wuxuu noo saxay muddo 2 sano ayuu noo saxay laakiin dhabta waxay tahay Messi in aan maxaa la dhahaa la filayo haddii hal kulan ama maxaa la 2 kulan oo fiican uu dheelo sidoo kale horyaalkan si fiican uu dheelo in haddii la soo dalbado ama Janis Europe ka banaan aan helno in aadi karno qasamaha Barcelona in soo dalbato qasamahan yani kooxaha weyn in soo dalbato laakiin Janis walba aan ku aadi karno Europe waa inaan ka faa'iideysanaa playerku ugu horeeyay marka wuxuu noo ahay Memphis Depay noo ahay Memphis Depay waa imaaday mideeda kalena waxaa kaloo raadiyay player kale loo yaqaan Alexis Vega oo asna garab ka dheero labadaas player bisa keensadaan inta teamka hadda uu joogay labadaas player bisa la keensaday wax kale ma soo qabanin labadooda marka yani Memphis Depay afkoora tuuro yani Nowa DLC sidoo kalena Vega waxa DLC Alexis Vega garab DLC marka kulankiisa ugu horeeyay Messi hadda uu dheela kulankan waxa waaye kooxaha oo Argentina xoogaa saas uma kala fahansaneen laakiin waxa hadda aaminsanahay teamkan in team xoogaha dhaqaaqa uu noqon karo maadaama uu joogo ninka loo yaqaan Memphis Depay mideeda kale Messi waqti badan kuma qaadan in gooshiisa ugu horeeyay laga dhaliyo maxaa la lahaa kubad corner la soo saaray goolaha laakiin inta afilina maahane in kalaaba ka dhalataba sidoo isku tuuray iyo qaabka madax loogu dhaliyo isku mid ma baahanba kubadan aan waxa aaminsanahay goolaha inuu qaban karay laakiin si qaldan oo isku tuuray dhimalaan waxa waaye waa weeraryahanna waa haysanaa markana waa kana Memphis Depay asan noo soo bridge aan waa sheegay markii aan sheegay Memphis Depay sababta uu soo qaatay waxay tahay maadaama mishaarkiisa aan bixin karno muddada halka sano markaas ama 2 sano oo la joogin mishaarkiisa aan bixin karno inaan kaga faa'iideysan karno oo aan maxaa la dhahaa horyaalka qaybta sare aan ku soo kori karno sababta kooxda New Old Boys waa kooxaha heerka hoose ama maxaa la dhahaa horyaalada qaybta hoose ka jooga ay kamid tahay Memphis Depay markii laga soo tagana ninkaan asan sidoo kale gooshi labaad noo dhaliyay magaciisa ay gambiyay gooshi labaad noo dhaliyay marka xareer aan dhahay gooshi labaad asan noo dhaliyay waxaa kale u maleysaa marka in teamka xogaha uu isfahansan yahay markii laga soo tago daafac markii laga soo tago oo u maleysa daafac inuu xogaha uu ka liito kooxda Messi ay ka liidato laakiin weerar iyo dhax iyo garbo inta buu is haysataa si Messi hore loogu yaqaanay يعني وبلاير او معناها مسكحيا ويرر ku fiican waaye sida hadda arki karnaa coach ahaan wuxuu noqonayaa waa coach ku fiican weerarka ku fiican sababta daafac hadda saa u joogna inta gooshi labada gool laga soo bareejiyay gool loo saaray meeshaas waxa ka fahmi karnaa daaficina inuu aad iyo aad u liito kulamada marka daqiiqada ugu dambeeyay waxa maxaa la lahaa jaala qaatay Cabrera jaala qaatay playerkaas loo yaqaan takal xun uu ku sameeyay mideeda kalena waxaan kaloo sameynay in maxaa la kulankan oo xogo badan aan ka soo aroornay kulankan oo xogo badan aan ka soo aroornay sababtoo meesha hadda aan ka qasanahay oo ka qasanahay oo wili fahmin yani aan dadka iskaga celi karin waa la fahmay waa daafac rigooraas hadda naga li kulanka koowaad marka guuldara ku dhacday Leo Messi kulankiisa koowaad guuldara ku dhacday oo waxaan u maleyn doonaaba in guuldaradaas uu ka soo laabanayo Warajina guuldaradaas inuu ka soo laabto ورجين دونا نيجي منفذ دبايا جول دليل لكن هفصاد على جالها ولا جديدي مدة كلنا سيدو كله
mar labaad ayuu kubadda isku soo aadiyay Memphis Depay inuu ninkan caadi ma inaba caadi ma wallahi kubad qurux badan ayuu dhaliyay laba gool oo dhaliyay kulankiisa ugu horeeyay laba gool miisa faraxsan daadiga odayga waa faraxsan waa dabaaldegooya marka kulanka marka waxaan u maleynaa kulankii ugu horeeyay oo maxaa la Mizi coach uu noqdo waxa kulan xamaasad badan oo noqotay dagaal badan goolal badan la dhaliyay maxaa la Rosa la qaatay waa kulan macnaha dhibkiisa iska wato ma fahanteen dadka kale footballka lagu soo dhaweynaa Leo Messi footballka as coach ahaan lagu soo dhaweynaa kulankiisa ugu horeeyay Messi waa laga badiyay saad u jeedno waxa kooxda New Old Boys homekooda lagu garaacay kulankii labaad marka Memphis Depay kulankan waa ku soo bilaabnay sidoo kale waxaan maxaa la ku soo bilaabnay ninka loo yaqaan Alexis Vega Depay kulankiisa ugu dambeeyay laba gool uu dhaliyay maadaama marka labada gool uu dhaliyay kulankan waxa asana kabtanka u dhiibno aan maxaa la kooxda ku aaminay inuu noo hogaamiyo sida kalena Leo Messi kulankiisa labaad uu dheeli doona kooxda loo yaqaan New Old Boys oo yani coach uu noqonayo markii intaas laga soo tago waxa shaxda wax badan laga bedelay teamka wax badan laga bedelay laakiin waxa wali isbedelna waxay tahay daafac xumadii kooxda naga haysatay waxa weerarka ugu horeeyay daqiiqada 28 lagu soo qaaday kubad banaanka la soo dhigay maxaa la uu dhilay ninkan loo yaqaan Mendes kulankan waxa asaasa goolkiisa ugu horeeyay lagu furay waxa u maleysaa marka in teamkan daafac xoogaa tacbaan uu ka yahay Messi ilaa haddana wali daafac isku maday inuu macnaha uu raadiyo Messi dhibka kaliya haysta wuxuu tahay maskaxdiisa waxay ku jirtaa Europe goormay aadi doontaa kooxaha Europe goormay ku soo dalban doonaan ma Barcelona ku soo dalban doonto ma Atletico Madrid ku soo dalbanayso ma Real Madrid ku soo dalban doonto Manchester City ama United ama maxalla Arsenal ama Liverpool yaa ku soo dalban doona macnaha maadaama marka maskaxdiisa ay ku jirto weerarkii maxalla kubadda ay wati xitaa way ka dantay daaficayni waa isku xumaaday hadda gool soo celinay laba gool laga dhilay hadda kooxda gool soo celisay Baleerka sahal gool noo soo celiyay gool daradii saddexaadna sidoo kale Messi soo kala ku qaatay gool daradii saddexaad horyaalka waxa u maleysaa in horyaalka hadda uu sii galbanayo maxaa la dhahaa oo ka sii dhamaanayo teamkeena ma fahanti kulanka saddexaad oo hadda waxaan dheelaynaa maxaa la dhahaa horyaalka Argentine kulankan waa kulan oo away aan nahna waaye kulankan waxaan rajeynayaa inaan gool daro ku furno sababtoo ilaa iyo hadda wili maxaa la gool fiican maan qaadan markana waa kana waa soo galay waa Memphis Depay wili gool fiican maan qaadan oo aan ku raaxaysano Memphis Depay let's go nigan waa ninka kaliya hadda kubadaha noo sharxayo waa Depay ma faham kubadaha noo sharxayo weerarkaas hogaaminaa kabtanimadu way ka muuqataa kulanka hadda laba gool oo dhaliyay first half laba gool oo noo dhaliyay kulanka waxa waqtiga marka gooldarida noo soo carfayso ma fahanti gooldarida noo soo carfayso kulan gooldaro afan gooldarida aan dhihinay maxaa la dhahaa guusha noo soo carfayso ma fahanti inkastoo isku halay karin daafac fiican aan haysanin marka kulankan waxaan ku qaadan doonaa kulankeena ugu horeeyay Messi uu badiyo as coach ahaan inay noqotaa laga yaabaa ma fahanti kulankiisa ugu horeeyay waa kana hadda aad maxaa la dhahaa wax meedaysan Messi mideeda kalena sidoo kale waxa kambi labaad ku soo laabanay waa kana Memphis Depay kambi labaad soo laabtay laakiin wali sidiis meeshiisa ka bilaabay saasay marka Memphis Depay wuxuu ku dhaliyay goolkiisa saddexaad ama hat-trick si loo yaqaan kulankan ka dhashay ninkan oo horyaalka Argentine joogo mideeda kalena wallahi liskuma celin kara u maleynaa liskuma celin karo teeda kalena tababaro fiican oo la sheegay oo hadda wararka waxa la soo dhigay oo ahaa in tababaro fiican oo maxaa la yaqaano Europe mar badan ka soo shaqeystay si fiican ugu soo shaqeystay oo caan legendary inuu horyaalka Argentina u maado laakiin ma naqaano tababaraas midka uu yahay laakiin waxa u maleynaa in aan mar un iska hor imaan doono waxaan jeclaan lahaa inuu player hore u noqdo maanta player hore Messi is yaqaanin in noqdo jeclaan lahaa kaalin saddexaad anigu ku jirno waxa si lama filaan nagu soo dalbatay kooxda la yaqaan Atletico Madrid sababtoo Diego Simeone ayaa shaqada markaa ka fadhiistay Diego Simeone shaqada ka fadhiistay maadaama marka Janiska kaliya uu raadinayo Leo Messi inuu Europe ku soo aado wadada kaliya u furna waxay tahay in uu ku imaado wadadaas Atletico Madrid mideeda kale coachka aan sheegayno waa coachka hadda aan ka hor imaanayno waana Cesc Fabregas waa player Messi isla soo dheeleen waa player teammates ahaayeen ma fahanti Cesc Fabregas oo kulankiisa ugu dambeeyay Argentina uu ku dheelayo maadaama hadda Atletico Madrid heshiis aan u saxiixanay kulankiisa ugu dambeeyay uu ku dheelayo maxaa la dhahaa horyaalka Argentina waa kaas tababaraha waxa waa la macsalaameynaya playerada dhanna macsalaameynaayo waxa waa la wada ogyahay kulankiisa ugu dambeeyay inuu yahay
mideeda kalena Cesc Fabregas wuxuu noqday playerkii ugu dambeeyay oo macnaha ka wajahi doono markii la joogo horyaalka. sidoo kalena isla markiiba wuxuu diyaarad u soo raacay dhankaasi Spain caasimada Madrid wuxuu markaas ku soo biiray kooxda loo yaqaano Atletico de Madrid maadaama Simeone uu ka fadhiistay. Simeone markuu fadhiistana waxa waaye Messi meesha soo qabsaday. waxaa laakiin majaladaha caalamka si fiican ama si waali u luxa waxay tahay ay la yaaban yihiin sidoo Lionel Messi oo legend ka mid lejamada Barcelona uu ku aqbali karaa shaqo kaga soo baxday Atletico de Madrid. Messi mar la wareystay wuxuu dhahay kooxda kaliya aan weligay maamuli doonin waa Real Madrid laakiin Atletico Madrid sidaas kuma jirto. mideeda kale wuxuu kaloo sii raaciyay football markii la joogo wax walba way dhici karaan. kulankiisa ugu horreeyay wuxuu u bixi doonaa kooxda la yaqaano Real Sociedad. waxa waaye tiimka waxa u jeednaa inuu bedelo Messi playeradii hore waxaa ka jooga hadda nin loo yaqaano Giuliano Simeone waa player inaba aan caadi ahayn. trainingku ku arkay Messi waxa waaye marar badan la hadlayay oo yani isku dhow yihiin maadaama Argentina isla yihiin. Simeone haddaa xasuustiin waxaa dhalay Giuliano waxaa dhalay Diego Simeone wiilkiisa waa player fiican waa. Messi marka waxaa lagu soo dhaweeyay in kulankiisa ugu horreeyay rigooro lagu bilaabo ayaa lagu soo dhaweeyay. Messi waa yaaban yahay waxa isleeyahay balse waxa jiraan player fiican haysta. mideeda kale shaxdiisa waxa waaye Salah iyo ku jiraan Salah ku jiro Alvarez ku jiro player badan oo world class ku jiro macnaha ma fahamtay. Messi waxa ka fujiyay markii ninkii isku wadankii ay yihiin Giuliano Simeone marka wuxuu sameeyay in yani halkii goolna uu soo breejay Simeone. cunugan horta cunug waali waaye markii trainingkii Messi uu imaaday waxa ugu horeeyay indhiis ay qabtaan waxay ahayd Simeone. marka mar la wareysanayo waxa la dhahay tiimka maxaa ka bedeli doontaa wuxuu dhahay tiimka wax badan waa ka bedeli doonaa laakiin dadka aan rabo inaan ku dhiso tiimka waxa waaye waa Giuliano Simeone iyo sidoo kale ninka loo yaqaano Pablo Barrios oo qadka dhaxdheelo iyo sidoo kale ninka loo yaqaano Julian Alvarez marka mar la wareysanayo la dhahay asi iyo yani Barcelona maxaa la warkaas la sheegayo wuxuu dhahay hadda Alvarez heshiis ninkuu nugula jiraa ilaa heshiiskiisa uu ka dhamaanayana wax markaas aan ka sheegi karna malaha. kulankuna marka ugu horeeyo oo maxaa la liiga uu ku dheelo Lionel Messi saasuu ku soo dhamaaday. mideeda kale haddaa video aan ka hesho waxaan idinku leeyahay soo dhawaaw like hala saaro subscribe saara insha Allah. qaybteeda kalena waxaa waa inaan soo duwaa rajeynaa waa King Milo idin le peace.